taliyaha hay'adda NISE ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Sheekh ayaa ka warbixiyay waxyaabaha laga faa'iiday dib u heshiisiintii ka dhacday degmada Marka iyo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Marka iyo deegaanada ku xeeran. Waa kan taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasi. tan iyo markii ay hirgashay dib u heshiisiinta bulshada wada degta magaalada Marka oo ay garwadeen ka ahaayeen madaxda qaranka ee isla markaana uu hogaaminayay taliyihii hore ee guutada 14 Oktoobar gaashaanle dhexe Axmed Cabdi Cali Axmed Gaashaan ayay bulshada ku dhaqan degmada Marka iyo nawaaxigeeda waxay dareemayaan macaanka nabadda. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, magaalada Marka, xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, magaalada Marka, xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. يعني لو وضع البقرة بسريسين وزعمه